دكتورka qaliinka haayo oo dadka qalo markii la yiri mudiirka isbitaalka leeyahay dhahay yani ninka isbitaalka iskale markuu yiri waxaan rabaa doctorow ina adiga ad wiilka aan awoogu u ahay aad qashid wuxuu ku yiri waaye ilaa waa shaqadiisii markii uu wiilkii la keenay oo qaliinkii loo diyaariyay ee suuxdintii uu diyaariyay uu suuxinayay oo wuxuu ku yiri dhakhtarkan wiilyahu ma i taqaanaa markaasuu wuxuu ku yiri wiilkii maya kuma aqaano markaasuu yiri ama i taqaanaa markaasuu yiri ma ku aqaano daawadii biljinka ahay ee lagu suuxinay dadka ayuu ku shubay markuu ku shubay oo siiyay wiilkii sii suuxay wuxuu yiri haye aniga adiga waxaa isla tirinaynaa 1 ilaa 10 hayuu yiri wuxuu yiri 1 2 3 4 5 6 7 8 markuu maraa wiilkii wuxuu arkay wiilkii oo sii liicanay arkay markaas wuxuu dhahay wiil laakiin si fiican uma suuxin markaas wuxuu yiri wiilyahu waa ku ogahay maku aqaani ay dhowsa laakiin ana iska ka baray aniga waxaan ahay gabadhii Nasriin ahayd ad xoogayso kufsiga u geysanaysa aabaheed ayaan ahay wiilkii asagoo sii suuxayo oo sii tagay yani ayuu haddana wuxuu sii maqlay kelmad gabadhii Nasriin ahayd ad kufsanaysay aabaheedaan ahay wiilkii asagoo naxsan ayuu suuxdinkii galay lana daawadii suuxiska balsiisoma kadib dhakhtarka wuxuu ku sameeyay balna ka shaqo sidaan dhageysanay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصدان مانتا إدين وضو حيتاي يا قيانات way badan tahay wallahi digniinta way badan tahay qisooyin saan la mid oo gabdhaha kufsiga loogu geysanayay ee wiilasha aaminayaan ayagoo badan waa soo gashay kale waxaan rajeynaa gabar walba oo weli guursanin inay u noqoto wacyigelin inay u noqoto waano inay u noqoto waxay ku qoos qaadato ilaa waxba lagu qoos qaataa marka qisaan waxay tahay gabar jaamacad dhigato oo dhalinyaro ah iyo wiil yaro isagan dhalinyaro oo jaamacad dhigto wiilkii wuxuu isku dayay gabadhii inuu shukaansado gabadhii soo shukaansado loo waday gabadhii way ogolaatay adiga wuxuu ku sameeyay qofkan soo jiiso sameeyna uu soo jiitay heer gabadhii ay yani calaa ku noqotay yani gabadhii asaga maahane qof kale in kale insan lahayn ay noqotay maalin maalmaha ka mid ah ayuu wuxuu yiri gurigeena ayaa xalfad lagu dhigayaa hooyaday iyo walaalahay ayaa xalfad guriga ku sameysana walaashay xalfad loo dhigaayo uma imaanay invitationada oo badan uu sameeyay yani waraaqan invitation kaararkan yarka waa la sameey karaa musan uu sameeyay mid uu keenay wuxuu yiri waa kana gabadh walaashiis iyo invitation maalintii waqtiga ku soo qoray gabadhan habdalaf soo dhahay hadiyad u soo gaday gabadhii guriga ku timaado 2 saac habeenimo saa u taqaan ama 8 habeenimo oo balami guriga markay timid mugdi waay narkii oo daaray albaabka markuu ku fur mugdi waay mugdiga maxaa waayt narkoo daaray ee guriga dad ma joogabe aaway surprise waayo walaashay banaanka hadda laga soo wadaayo surprise loo sameeyo ya surprise loo sameeyo fariis maxaa ku dhibay haye dhigayso yiri hoosto ka soo galay soo sheekada ugu gacmo soo bilaab gabadhu way istaagtay waxay tiri dhigayso aniga gacmo-gacmayskaaga inta iga dhaaftay iga jooji markaas wuxuu yiri meelaha aan tegi jirna xayawaanaadka in sabrada ku soo gali jirno anagoo isku dhigdhigano ma moogto yiri maya aabaha sabradaas u geeyna aabaha dhakhtar weyn waa ogtahay isbitaalku joogo waa ogtahay ya sumcadiisa hoos u dhacayso sabradaas iyo fiidiyoda yararka soo duuduubnay aan u geeyna abay adoo maxay hato isaarna u geynayid maya waxa u geynay sabro aniga adiga is ag taagan leemo hoy tiraha u geey hadarti kale aniga waxa soo wadid raali kamii waxa sameynaysin raali kamii meeshan xaflad lagu maqabaytir ana u qayaanis wuxuu yiri ala ay taxal reerkana safar ay aadino gurigan qof joogto ma loo waa aniga iyo adiga hadii ninkay la saaxiibtane ma aha nin yani jab yar ayadana gabar yar oo jab yar asaguna waa nin xoog leh bal maxaa u geeyay gurigiisa inuu gashay ninka mararo albaabada xirxirto wixii dhan qaba diyaar u yahay inuu xoog adiga tacaddi u geystay gabadhii meeshii ku kufsaday
gabadhii markuu meesha ku kufsaday iyadoo ooynayso rafaasan ayay gurigooda timid waxay gashay xaalad kooma ah gabadhii koomada dee kasoo kacday waxaa la ogaaday gabadhaan xaalad nafsiyan inay u jiranta waxaa la geeyey isbitaalka xaalad nafsiyanta ah gabadhii mudday kusoo jirtay kadib ayay soo roonaatay aabeed markuu wareystan way sheegtay dhibaatada u geystay isbitaalka oo ka shaqeeyo ayaaba awowgiis mudiirka isbitaalka lahayba waayo way u sheegtay wixii oo dhan aabeed fartay ka saartay aabeed wuxuu yidhi bal ilaahay amarkiisay ku dhacday waxaanaytii yaa aabba wax kaloon sameey ma lehe lugahaagaan ku doonatee xal allah u maqan aabbiyo qalbadiisa xun caloosha iska cunaaya rafaasan ayuu wuxuu isiri gabadhaada maaweeli maadaama gabadhaada marad nafsi ku dhacay maalin maalmaha ka mid ah ayagoo joogaan meel baar ah ee gabadhina ay la joogto ee kafay cabaayaan ayaa 3 wiil soo gashay 3 wiil mid ka mid ah waa kii kufsiga u geystay markay aragtay gabadhii wixii soo xasuusta wuxuu ku sameeyey wayba orday aabeed oo ka daba orday gabadhiisoo kusoo dhagay waxay tiri aabbo 3 nin meesha taagnaa midka saas ahaa shaarka noocaas watay kaas waa kii kufsiga geystay aabii wuxuu yiri bal waxay dhacdaba tan mid lasaga daba heri kara maahan haddaa marka hore sheegi lahayd aabbo wixii kugu dhacay waxa waaye waxaan la kori lahaa maxkamad oo xol baan sameyn lahaa laakiin hadda mudday kasoo wareegatay waxaan sameeyo ma aqaan waxaan sameeyo ma aqaan ku qabatay qadar la dhacday balna gurigu geeyay waxaa dhacday marka maalin maalmaha ka mid ah subxaanallah maalin maalmaha ka mid ah ayaa wiilkii xanuunsaday oo kufsiga u geystay isbitaalka la keenay awowgii wuxuu yiri dhakhtarkan u wacay waa dhakhtarkan gabadhiisa la kufsaday wuxuu yiri dhakhtar weynaa tahay adaa qaliinka ku fiican adaa qaliinka ma sha Allah ku tahay marka wiilkii qofaan adiga ahayn wiilka awowgu ah ma jirto ayuu yiri wiilka markii loo keenay waa yaqaanaa dhakhtarkan jaawo arkay wiilkii qaliinka loo soo diyaariyay wixii loo soo diyaariyay maalinta qaliinka ahaa la suuxinay suuxiska asaas suuxinay oo ag yimid ayuu daawada siiyey markuu sii suuxay biljinka uu siiyey wuxuu yiri waa wada tirinaynaa tiris hayuu dhah suuro 1 2 3 4 5 6 7 8 markuu maraa wuxuu yiri ma taqaanaani markaas wuxuu yiri ma ku aqaan ama ay taqaanaa maya ana isku ka sheegay hay gabadhi nasrin ahayd aad kufsinta kufsiga u geysanays hay aad lugoysi gabadheedii maskiinta ah aabaheedan ah wax meel ka qabto male wuxuu shiri ninkan ku qalay waba ku dil rabaabo ilaa baas dheelay musun ninkan oo sii suux xasuusti yani waa xasuustaa laakiin baa suuxiya kale wax ma ka qaban karo wuu ku kor fikir dhakhtarka wuxuu shiri jaanis haystaa madisha ma hay u dhamaysaabo ninka saan gabadhaada u galay haddana wuxuu shiri maya wuxuu yiri xaq alla dambiya ka gashay tii adduunyada waxaad ku dheeshay yiri bartokoolkii dhakhtarnimo aad ku dheeshay marka qalli cala allah ilaahi u diiyo yirkan iska qalinkii la galay qalinka markii la galay dhaqaatiirtii hal dhakhtar ma la istaagay amsut dhaqaatiirta kale la taagnaayeen waxay dhaheen dhakhtar ninkan aad qalisid walwalsan yahay dhiigiisa fiiri ileen dhiigiisa fiisa lagu xiraa korontoyimsan dhiigiisa fiiri erkoka yani dhiigiisa kor u kacaya ma dogooyo wax walbaan sameyn waa la qalooya qofka maxaan ku sameyn soo qalinka la haayo ya dhakhtarkii qalaayo ayuu dhakhtarka kale ku wareejiyay bal ana dhiiga aan dejiyo aan isku dayay bal adna kaala gal dhakhtarka kale qalinka ku dhuusis bilaa dhakhtarka kale dhaqaatiirta kale waxay isku dayaan dhiiga inay dejiyaan qofka inay dejiyaan ma degay subxaanallah marka dambe waxay dhacday muddo saacad markii saas isugu wareersanay ee qalinkiisana lagu jiro naftadiis si walba yeeleen haddii kii wadnaha lagu kicina lagu kacshay haddii si walba la yeelay ilaahay ka aaray qofkan allah ka aarayo saas ku dhintay yadri ilaahay ku dili ninkan qalinka saxun uma qalin oo dhakhtar kale ku wareeji qalli cala allah yiri ilaahay ku deestay ya alla ka weyn qofta ku tiriyo qalli cala allah ilaahay u day ilaahay waxa waa asaa shaqadiisa qabsana qafuur raxiim waa asaa koonkan abuuray asaa umada ilaahay abuuray gaal islaam saa abuuray marka ilaahay u day ilaahay loo deeyay waxa waa aarma ilaahay ku guday qofta ku tira waa gudashado qofta alla ku day waxa quraana dhaado walaal iska ka cafir allah walaal iska cafir maxay alla ku guday qofta ku tira rabbi ku gudays marka rabbi ku day saasoo ku dhintay tacsiis lagu qabtay oo soo baxay aabihii gurigu yimid asagoo oo
madluunsan markaas tiri aabo maxaa kugu dhacay markaas wuxuu yiri sin waa u faraxsan uu yiri sinne waa u qalbi dilan uu yiri maxaa yeelay inuu dhinto bari inuu dhah nolosha ilaahay wuxuu sameeyey u yiri asaga wuxuu sameeyey ilaahay rabbiga subxaanahu wa tacaala ma ka daasan mana ka qarsan uu yiri laakiin uu yiri waxaan rabay u dhah yaa adduunka korkiisa inuu cadaabta ku tuso laakiin hadda aakhira looga jaraayo anagoo qaliin ku jirno saasaan sameeyey waa u sheego dhahay markaas sii suuxay asagoo sii suuxay walwal ku suuxay markuu suuxa kadib qaliinka lagu bilaabay dhaqaatiirtu waxay sheegay dhiiggiisa inuu kacay dhakhtarka kale ku wareejiyay qaliinkiisii asoo qaliinka lagu jiran naftaabadiisa si walba dila sameeyeen wuu soo noqowaay subxaan allah wuu soo noqowaay saasuu ku dayay ilaahay lagu dayay qof alla lagu dayay cayaar ma yaa qof ilaahay lagu dayay cayaar ma waxaa la yaabaa dadka beenbeenta dadka dhiigga islaameed ku galaya oo dadka dhiiggooda ku galaya subxaan allah aakhir waa iloowe wallahi aakhir waraa jiro aakhir waa iloowe لأنه قف وقلت كدلو حواي أقابت هذا لذا ربي جاي وكجاي سنة سبحان الله يا إله ليك إسلامة نقلين أنا كان ده تقلين ما هو بقول إله ليك إسلامة نقلين أنا كان ده تقلين سبحان الله الحمد لله إلهي حقيقي وقف دكن وإلهي قرقاري الحمد لله مد إلهي حن كبريا إيجان إنه إلهي قلبته إسكسو جيدي ومدان ديك دتك هايسن إيجان حق الله تصير وحق الله أنا شيء إن لو دعية نقني إن لو سو دعية نقني مركا قصدين ما أنت سكو أكتا إن شاء الله قصدين قصة حكتو غير بزنا إذن دافي حين هاي بش عافمات برواقو أيدين رجينا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.